بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala waxaan halkaa ka bilaabaynaa tafsiirka kitaabka qur'aanka kariimka ah. waa maalin hulaahaa ah ama talaado ah. bisha hijrigu waa 25 rabiicu thaani sanadka 1435. taariikhda miilaadiga ah ayaa la mid ahoo ku beegan 25 bisha 2 2014. magaaladu waa Nairobi, xaafaduna waa jaamka. hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala waxaan halkaa ka bilaabaynaa tafsiirka qur'aanka kariimka ah sidii aan horay u sheegnayba, annagoo rabbi ka baryayna subxaana wa tacaala inuu nagu saacido, inuu noogu kaalmeeyo bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa. wax allaala wixii aan ku qaldanno oo sidii loogu talagalay aanan u sheegin, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga cafiyo. waa nafteennii shaytaan, ilaahayna beri buu ka yahay subxaana wa tacaala. wixii aan ka asiibno oo sidii loogu talagalay aan u waafaqnana ilaahay baa ku mahadsan, waxaanana ka rajaynaynaa thawaabteeda inuu naga siiyo. ma aha caqligeenna, xeeladeenna, cilmigeenna, balse waa tawfiiq ilaah subxaana wa tacaala. waxaanu ka bilaabi doonaa suuratu faatixa, waxaanu ku xijin doonaa suuratu albaqara. saas ayaan u sii wadi doonaa oo hoos ayuu u socon doonaa. intaan soo ururin karno inaan soo ururino oo aan soo gaabino ayaan isku dayi doonnaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala. akh walba iyo ukhto walba oo wax kaga intifaaca tafsiirkaanna waxaan ilaahay uga rajaynayaa subxaana wa tacaala inuu miisaankooda xasanaadka ugu siyaadiyo, inuu rabbi uga dhigo midkii saa'iqahee u kaxeeya jannooyinka rabbi subxaana wa tacaala. waxaanana ka dalbanaynaa inuu noo soo duceeyo annaga, waalidiinteenna, mashaayikhdeena iyo in allaala inta muslimiinta ah oo dhanba. tafsiirka sida aad la socotaan walaalayaal, waxa uu ka mid yahay waxyaabaha la barto, waxa ugu qaalisan ee markaa ugu sarreeya. sababtu waxay tahay kutubka ugu sarreeyay ugu qiimaha badan ee adduunka yaala waa kutubka qur'aanka kariimka ah. sidaa darteed ayaa qof allaala qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu ku dhaqmo kuna camal falo dastuurka rabbaaniga ah ee xagga rabbi uga yimid. sidaa darteed ayaa qofku uusanna ku camalfali karin ilaa inuu yaqaano macaanida iyo waxyaabaha ku dhex sugan ee ku jira kitaabka qur'aanka. rabbi subxaana wa tacaala mar allaala markuu ku soo dejiye nebi moxamed sala allahu calayh wasalam qur'aanka wuxuu ku yidhi, waan soo dejinay oo dushaada qur'aan iyo dikri baan ku soo dejinnay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim, inaad dadka u bayaaniso ood u caddayso oo macnaha ku jira aad u sheegto wixii markaa lagu soo dejiyey. xaaladdaa waxay tilmaamaysaa in aad loogu baahan yahay dadku inay tafsiirka qur'aanka ah aad iyo aad ay u bartaan. kitaabka qur'aanka ah waa mucjisada ugu sarraysa ee alla soo dejiye subxaana wa tacaala. haddii jin iyo insi ay isu tagaan inay la yimaadaan qur'aankanoo kale ahna lama imaan karaan, xataa haddii gobolkood gobolka kala kaalmeeyo, gacanna siiyo. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwii ku dhaqmo inuu naga dhigo. suuratu faatixa. faatixa suuraddeedu waa suurad makiya ah. suuradaha maka ku soo degay inay ka mid tahay ayaana la tilmaamaa. aayaadkeedu waa 7 aayadood. waxaana loo baahan yahay
in macaanida ku jira aad iyo aad loo dhuuxo suuratu faatixa. sababta waxay tahay waad u jeedday qur'aanka lagu furfurtay. salaad walba oo la tukanayana waa in lagu akhriyaa. salaad aan faatixo lahayn alla ma aqbalo subxaana wa tacaala. qofka muslimka ah waa inuu ogaado suuratu faatixa inay leedahay fadaa'il aad iyo aad u fara badan oo meesha aan lagu soo koobi karin. waa laysku tufaa oo waa daawo. salaadaa lagu tukadaa. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay acdam qur'aanka waxa ugu weyn. bacdamay sidaa tahay suuraddanu waa inay dadka macaanidiisa iyo habka ay u akhrinayaan ay aad iyo aad u saxaan. waayo haddaad qalado salaadaadiibaa jaban. haddaad wax ka hallayso salaadaadiibaa hallowday. xataa mararka gobolka mid ah ilaahay suuradda ama nebiga sala allahu calayh wasalam ama rabbiba wuxuu ku tilmaamaa inay salaad tahay. salaadda anii addoonkayga way noo qaybsan tahay buu yidhi. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin allah iska leh. iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin way noo qaybsan tahay. ihdina asiraata almustaqiim waxa ka hooseeya addoonkaa iska leh. addoonkaygana wixii uu u su'aalay ayaan siiyey buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala. bismi illaahi araxmaani araxiim. waan bilaabayaa suuradda magaca rabbi ayaan ku bilaabaya ilaahay magaciisa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa, alraxiimi naxariista qaaska ah lahaa. allaha magaciisa ayaan ku bilaabayaa. bismi illaahi araxmaani araxiimi. bismi illaah waan bilaabayaa suuraddani oo waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi ilaahay magacii allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa, alraxiimi naxariista qaaska ahna u sugnaatee muslim iyo kaafir mutiic macnaha naxariista qaaska ah dadka mu'miniinta u naxariista. alxamdu mahad lilaahi alluun bay u sugnaatay. ammaan iyo faalo mahad ideelkeed iyo dhammaanteedba lilaahi allay u sugnaatay. rabbialcaalamiina caalamka iyo uunka iyo koonkan oo dhanna rabbiga u ahaa. rabbialcaalamiin caalamka oo dhan rabbigii khalqee barbaarinayay allaha ayay mahadi u sugnaatay. alraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa. allahaasoo raxmaan ahoo raxmadda guud ahaan macnaha muslim iyo kaafir mutiic iyo caasi baari iyo faajir intaba allaha u naxariista. allaha ayaa mahad ay u sugnaatay subxaana wa tacaala. alraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa. alraxiimi naxariista qaaska ah ee dadka mu'miniinta loogu talagalayna allaha iska leh. allaha ayaa mahadi u sugnaatay. maaliki boqorkii yowmiiddiini maalinta abaalmarinta. yowmiiddiin waa maalinta aakhiro. maalinta aakhiro boqorkii maamulahayay ee boqorka ahaa allahaasaa mahad iska leh. adduunku wuu ku yahay, aakhirana waa boqorkeedii, waa boqorkii maalinta qiyaamo. sidaa darteed ayaa waxa si qaasa loogu tilmaamay maaliki yowmiiddiin. maalinta qiyaamo waxaa caddaanaysaa oo si dhab ah dadku ay u qiri doonaan boqortinimada alle ayadoo la wada taagan yahay. yaa rabbi wuxuu odhanayaa liman ilmulku alyowm. maanta yaa boqor ah. maantayay u sugnaatay maamulka iyo hanashada. maanta yaa maamulka iska leh. wax u jawaaba marka la waayo ilaan dadkoo dhan way cabsanayaan. ayuu ilaah leeyahay lilaahi alwaaxid alqahaar. alla keligii baa maanta boqor ah. anaa jabbaar awa jabbaariintii. anaa mutakabbir ahee away mutakabbiriintii. wax hadla ma laha. maaliki boqorkii yowmiiddiini maalinta qiyaamaha. iyaaka adi uun baan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa. wa iyaaka adi uun baan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa.
ilaahayow adigaan ku caabudi, adigaanna ku kaalmo weydiisanaynaa. ihdinaa ilaahu nagu hanuuni alsiraata almustaqiima, jidka mustaqiimka ah ee toosan ilaahu nagu hanuuni. siraata aladiina kuwii jidkoodii rabbiyow nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda, hayri almaqduubi kuwii loo caroodayna aan ahayn calayhim dushooda, wala addaalliina kuwii lumayna aan ahayn. kuwii loo carooday hayrkood macnaha kuwii daalliin noqdoo dhumay hayrkood, ilaahuw kuwaa jidkooda nagu hanuuni. ihdina waxaad nagu hanuunisaa alsiraata almustaqiima, jidka mustaqiimka ah waa jidka jannada gaarsiiya, aan ciwajkii qallooca lahayn. waa jidka mustaqiimka ee khayrka iyo wanaagga tusiya, waa jidka ilaahay ku xira. ihdina asiraata almustaqiim, siraata almustaqiimka rabbow nagu hanuuni. siraata aladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni. waayo qolo kasta jidkooda ma rabno. dad baa jid xun oo baadiya mara, dad baa jidka ay ku socdaan jaxiimii jahannamo gaarsiiya. rabbiyow dadka aan rabno oo aan codsanayno jidka ay mareen, jidkaa inaad nagu hanuuniso waa aladiina ancamta calayhim, kuwii aad dushooda u nimcaysay. maxaa loogu nimciyey iimaan? waxaa loogu nimciyey nebinimo, waxaa loogu nimciyey sidiiqnimo, waxaa loogu nimciyey khayr iyo wanaag, waxaa loogu nimciyey ku camalfal diin. siraata aladiina ancamta calayhim, dushooda aad u nimcaysay. hayri almaqduubi kuwii loo carooday calayhim dushoodana aan ahayn, wala addaalliina kuwii lumayna aan markaa ahayn. maqduub waxaa la yidhaahdaa, waxaa loola jeedaa waa yuhuud, waayo cilmi iyo diin iyo kitaab iyo khayr iyo faham la siiyey yay ka duureen dhabarkooda gadaashii, markaasay cilmigii alla siiyey ku camalfali waayeen. cilmigii allay qariyeen, ilaahay baa u carooday subxaana wa tacaala. nimankan daalliinta la yidhaahdana waa dadka nasaaree, ayagoon cilmina aqoonin waxna fahamsanayn ayay dhaheen haddana waxaan ku camalfalaynaa ama waxaan samaynaynaa, waxbaan raacaynaa. markaasay dhumeen. labadaba ma rabnee dadka jidka mustaqiim ka raacay, ilaahay u nimceeyey, khayrkii wanaaggii barwaaqada la siiyey, ilaahayo kuwaa jidkooda nasii oo nagu hanuuni. bismi illaahi araxmaani araxiim. alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi alluun bay u sugnaatay. wardadoo haddaad rabbi mahadisaan iyo haddaadan mahadinin, intaba ilaahay mahad buu leeyahay subxaana wa tacaala. abuurka aan abuurannahay mahad allah ka muuqata. dadku hadday inkiraan oo ay diidaan oo ay rabbi mahadin waayaan, iyo hadday mahadiyaanba ilaahay mahad baa u sugnaatay subxaana wa tacaala. alxamdu lilaahi ilaahay bay mahadi u sugnaatay. rabbi alcaalamiina caalamkan iyo uunkan iyo koonka oo dhanna midka maamulo ah, rabbiga u ah. alraxmaani naxariista guud ahaaneed. qorax hadday soo baxdo, roob hadduu yimaado, mu'minka keliya kuma intifaaco, muslim iyo kaafir, kii rabbi diiday iyo kii oggolaaday intaba way ku intifaacaan. waayo adduunku ilaah wuxuu ugu talagalay subxaana wa tacaala qof kasta xaddigiisii dheeftiisa inuu ka qaato, qof kasta nasiibkiisa inuu ka qaato. sidaa darteed ayuu ilaah leeyahay, tilmaamayaa inuu yahay alla naxariis badan. alraxmaani allaha naxariista guud ahaaneed lahaa, alraxiimi iyo raxmadda qaaska ahba. wa kaana bilmu'miniina raxiima, waa allaha mu'miniinta u naxariista. sidaa darteed ayaa xadiid wuxuu tilmaamay, ilaahay wuxuu abuuray 100 naxariis iyo 100 raxmad. 99 ayuu agtiisa ku kaydiyey. mid ayaa makhluuqa loo soo dejiyey. halkaa waayo midka ay addoommada oo dhan isugu naxariisanayaan, xataa ilaa aad aragto faraska lugtiisa inuu kor uga qaadayo asagoo ka cabsanaya canugiisa inuu ku asiibo, canugiisa inuu ku istaago ayuu ka cabsanayaa. saa darteed raxmadan weyn
isku gurmadkan, wax isku qabashadan, isku naxariisashadan weyn ee aad u jeedaan waa hal naxariis oo adduunka loo soo dejiyey. 99 ayaa alla agtiisa lagu kaydiyey. kaa ayaa loogu naxariisanayaa dadka mu'miniinta ah. rawaad baa waxay ku dartay xabaddii inta la soo celiyo la boqoleeyo yaa dadka mu'miniinta loogu raxman maalinta qiyaamaha. maalikii boqorkii ayay mahadi u sugnaatay yowmiiddiini maalinta qiyaamaha. yowmuddiin waa maalinta abaalmarinta, waa maalinta aakhiro. wamaa adraaka maa yowmuddiin, yowmuddiin waa maalinta xisaabtanka. boqor ka maamula waa ilaahay subxaana wa tacaala. maaliki yowmiiddiini maalinta abaalmarintii maalinta qiyaamo boqorkood ayaa mahad iskale. iyaaka adi uunbaan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa, cid kaloon caabudaynaa ma jiro. macbuudkeennu waa adiga rabbi subxaanahu wa tacaala, keligii baan caabudaynaa. iyaaka nacbudu wa iyaaka adi uunbaan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa. wax noo tari karoon adi ahayn ma jiro, waxna anfici karoon adi ahayn ma jiro, wax balaayadii dhibka naga qaadayoon adi ahayn rabbow ma jiro. iyaaka nacbud, keligaa baanu ku caabudi. wa iyaaka nastaciin, adi keligaa baana ku gargaar weydiisanaynaa. waxa ayaan darro ah inaad tukato oo aad dhahda iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin, haddana alla kayrkii aad u qayliso, alla kayrkii aad u qaylo dhaamiso, cidaan alla ahayn waxaysan awoodi karinoo awooddii alle inaad qof kala siiso. waa ayaan darro, waa nasiib xumo, waa shirki iyo xumaan, waa waxaan hagaagsanayn. iyaaka nacbud, rabbiyow keligaa baanu ku caabudi. wa iyaaka nastaciinu, adi keligaa baan haddana ku kaalmo weydiisanaynaa. ihdina asiraata almustaqiim, baahidoodii bay sheeganayaan marka muslimiinta. ilaahayow nagu hanuuni jidka mustaqiimka ah. ayagoo salaad tukanaya oo hanuunsan oo taagan oo rabbi hortiisa taagan bay haddana waxay weydiisanayaan, allana ka baryayaan in la hanuuniyo. oraahdoodu waxay tahay ihdinaa, ilaahow nagu hanuuni assiraata almustaqiima, jidka mustaqiimka ah. maxay ula jeedaan? allow hanuunka adaa iska leh. qofkuu rabbi hanuuniyaa hanuunsan. meeqa qofood oo kaa xoog badan, kaa caqli badan, kaa xoolo badan, kaa karti badan kari waaye inay intay soo weysaystaan beydka allah iyo masaajidka ay soo galaan, ay qiblada qaabilaan, ay takbiirta ixraamka la yimaadaan, salaad ay xirtaan, faataxa ay akhriyaan awoodi la. maxaad ku awooday adiga? maxaa ku samaysay? tabtaada ma aha, xeeladaada ma aha, waa tawfiiq ilaahay subxaana wa tacaala. sidaa darteed bay ula jeedaan ilaahayow hanuunka noo daa'im, hanuunka nagu sug, hanuunka nooga dhig mid ku taagnaadoo ku sugnaada. ihdinaa assiraata almustaqiima, jidka mustaqiimka ah ilaahayow nagu hanuuni. jidka mustaqiimka ilaahayow na tusi. jidka mustaqiimkaa rabbiyow nagu laasim oo kuwa dib uga gurtoo laabta oo cirbahooda u laabta rabbiyow ha naga dhigin. waxaad naga dhigtaa dad hanuunka say u qaateen ku laasima. waayo rasuulka sal allahu calayh wasalam adeerkii markuu waaniyey uu wacdiyey uuna ka diiday shirki iyo gaalnimo uu ku dhintay, innaka laa tahdii man axbabta lagu soo dejiyey. adiga ma hanuunin kartid qofkaad jeceshahay, walaakina allaha yahdi man yashaa, laakiin rabbi baa hanuuniya cid allaala ciduu doono. idan ihdina asiraata almustaqiim, ilaah waxaad nagu hanuunisaa jidka mustaqiimka ah. jidka mustaqiimkee toosan allow nagu hanuuni. waa jidkee? siraata aladiina, kuwii jidkooda ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda, hayri almaqduubi, kuwii loo carooday hayrkood ah, calayhim dushooda, waladaalliina, kuwii lumayna hayrkood ah. macnaha kuwii lumay iyo kuwii loo carooday labadaa jidkooda ma ahee, jidka ka soo haray ee dadka loo nimceeyey ee khayrka iyo wanaagga helay, jidkooda ilaahayow nagu hanuuni. kuwaa jidkooda ilaahayow na tusi.
kuwaa jidkooda ilaahayou nagu laasimi macnuhu waa sidee macnuhu waa sidaa macnaha in allaala inta alla ateecda rasuulkana ateecda fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim kuwuu ilaahay korkooda u nimceeyaa micla la dhigaya oo min alnebiyiina waasidiiqiina waashuhadaa waالصaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa waa dadka ilaahay u nimceeyey dadka noocaa ah dadka ilaahay khayrka sii waa dadka noocaa ah fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim rabbi ayaa u nimceeyey waa nebiyaal maca aladiina ancama allaahu calayhim min alnebiyiina waالsidiiqiin waa run sheegayaal min alnebiyiina waالsidiiqiina waالshuhadaa waa shuhado diinta alla difaaceedii lagu dilay oo ku dhintay shuhadaa waالصaalixiin waa suusuubanayaal waa dad awaamirta alle ku taagan khayrka iyo wanaagga ku socdee ku dadaala waالصaalixiin dadka ayaa loola jeedaa dadka ilaahay u nimceeyey subxaana wa tacaala hayri اlmaqduubi kuwii loo carooday calayhim dushooda aan ahayn wala adaalliina kuwii lumayna aan ahayn bismi illaahi الraxmaani الraxiim alxamdu mahad lilaahi allown bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina caalamkan oo dhanna rabbi u ah alraxmaani naxariista guud ahaaneed alraxiimi naxariista qaaska u ah dadka iimaanka leh ee maalinta qiyaama loogu talagalay raxmadda qaaskay inuu ilaahay siiyo subxaana wa tacaala idan raxmadda ilaahay waa waasic naxariista ilaahay shay kasta way ka waasicsan tahay ilaahay caradiisii raxmaddiisa naxariistiisaa waasica sidaa darteed ayaa raxmadda ilaahay weynaanteeda hadday dadku ogaan lahaayeen qofna janno kama quusteen ilaahay caradiisa iyo ciqaabkiisa badnaanteeda hadday dadku ogaan lahaayeenna qofna janno ma damceen saa darteed baa khawf iyo rajo mar walba loo baahan yahay alraxmaani alraxiimi allaha naxmada waaye subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa aad buu ugu raxmadaa sharaacada iyo diinta islaamka midda khafiifkee sahlan ayuu amray dembi dhaaf hadday rabaan inay weyddiistaanay qaldamaan waa saamaxa in badan buusan ciqaabka ku soo dadejinin idan addoommadiisa aad buu ugu raxmad badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay addoommadiisa aad buu ugu naxariistaa maalin baa koox qafaala inta la soo qafaalay xero masaajidka albaabkiisa ku taallaa lagu shubay mar allaala marka meesha lagu shubaa waxaa ku jirtay baa layidhi islaan irmaaneed oo naasaheedu caana ka da'ayaan waxay ku dhex cararaysaa qafaalka gudihiisa mar kastay aragta sabiyi ilmo yar intay soo qabato yay ku dhejinaysaa laabteeda markaasay nuujin waana cunug aysan dhalin rasuulku intuu la tacajubay buu saxaabadiisii ku yidhi ma u malaynaysaan taasi inay canug ay dhashay naarta ku tuuri doonto foorna holcaysa iyo dab hurahaya ilmo ay dhashay inay qabato inay ku tuurayso ma idinla tahay mayabay dheen rasuulka ilaahayo ayadoo kari karta inaysan ku ridin aysan ku tuuri mayso wallaahi ilaahay ayaa uga raxmad badan ugana naxariis badan addoommadiisa middanisay canugeeda ugu raxmato ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam saa darteed ilaahay waa naxariis badne aad ugu naxariista dadka mu'miniinta ah u naxariista addoommadiisa guud ahaan ummad qaldantay aan cadaabka ku soo dadejinin cuquubka aan dembiga isla markii durbaba ku qabanin wax badan u raxmado oo u kaadiya alraxmaani alraxiim waa alla naxariis badan maaliki boqorkii yowmiiddiini maalinta qiyaamaha ilaahay boqor ayuu yahay maalinta aakhiro sheegasho badan baa jirta boqor hebel baa jira anaa boqor ah baad maqlaysaa laakiin kii ugu horreeyee la khalqay iyo ka u dambeeyee la khalqi doonoo wada taagan yaa ilaahay ama malag wuxuu ka dhex naadinayaa dhexdooda ou leeyahay maanta yaa boqor ah war maanta yaa mulkigu u sugnaaday maanta yaa boqor ah ayuu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala liman ilmulku alyowm maantayay u sugnaatay hanashada war maanta yaa mulkiga u sugnaaday
yaa lahaashada iska leh maaliki yowmi اddiin waa maalinta qiyaamo boqorkii maalinta aakhir ilaah subxaana wa tacaala axad dhawaaqayaa ma laha qof hadlaayaa ma laha qof dhahaya anaa boqor ah ma jiro lilaahi alwaaxid alqahaar baa loogu jawaabayaa ilaahay baa maanta boqor ah allaha keligii ah allaha qahaarka ah allaha qasbidda badan allahaasaa boqor ah maaliki yowmi اddiin iyaaka adig keligaa baan nacbudu ku caabudaynaa adiga cid aan ahayn oo rabbiyow cibaado mutaystay ama cibaado leh ma jirto qof kastoo cibaado u sugnaaday ma laha cibaadada xaqa ah dhabta ah waa ilaah subxaana wa tacaala bay u sugnaatay inta ka soo hartay dadku caabudayaan cibaadadooda waa baatil waa wax aan waxba ka jirin cibaadada xaqa ah waa midda alle la caabudo subxaana wa tacaala ilan asagaa mutaystay hadduu mahad dhammaanteed leeyahay hadduu raxmaan iyo raxiim yahay boqorka maalinta qiyaamo yahay idan cibaado asagaa mustaxiq u ah asagaa leh oo mutaystay iyaaka nacbudu adig keligaa baan rabbow ku caabudi wa iyaaka nastaciin adig keligaa baanna ku kaalmo weydiisanaynaa cid kaloon isticaano weydiisanayna ma jiro rabbi ayaa nagu filan subxaana wa tacaala alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay miyuusan ahayn addoonkiisa mid ku filan ilaahay waa yahay subxaana wa tacaala ilaahay addoonkiisa kaafi ayuu ku yahay waana ku filan yahay cid asaga aan ahayn oo cibaado mutaystayna ma laha cid asaga aan ahayn oo in isticaano iyo kaalmo la weydiistaanana ma jiro sidaa darteed buu cabdullaahi bnu cabbaas oo ilmo yar ah wuxuu ku yidhi nebiga idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin biاllaah cabdulaahiyow haddaad su'aalanaysana ilaahay su'aalo haddaad kaalmo cid weydiisanaysana ilaahay weydiiso ummadda oo dhan hadday isu kaa yimaadaan oy isu soo ururaan say wax kuu anfacaan ama ay wax ku taraan darteed wax ay ku tari karaan ma jiro ilaa wixii alla kuu tara maahane subxaana wa tacaala ilaa wixii ilaahay kuu qora maahane haddana hadday ummad dhammaanteed isugu timaado inay ku dhibaan ku cadaadiyaan dur iyo dhibaatay ku gaarsiiyaan cirbad caaradeed oo ay kugu dhibi karaan ma jiro ilaa wixii ilaahay dushaada ku qoray maahane subxaana wa tacaala aqlaamtii wax lagu qorayna kor baa loo qaaday waraaqii wax lagu qorayna way qalaleen saa darteed iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin keligaa baana ku gargaar weydiisanaynaa ihdinaa ilaahu nagu hanuuni alsiraata almustaqiima jidka mustaqiimkee toosan allow nagu hanuuni siraata aladiina kubii jidkoodii ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda hayri almaqduubi kuwii loo carooday calayhim dushooda aan ahayn ama kayrkood ah waladaalliina kuwii lumayna aan ahayn ama kayrkood ah waa yahuudiya nasaara iyo cid allaala ciddii saasoo kale iyo wixii ay sameeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilaahi allabay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina oonkoonka iyo uunka oo dhan rabbiga uu ahaa alraxmaani naxariista guud ahaaneed alraxiimi naxariista gaar ahaaneed maaliki boqorkii yowmiiddiini maalinta abaalmarintii maalinta qiyaamaha iyaaka adi uun baan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adi uun baan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa ihdinaa ilaahu nagu hanuuni alsiraata jidkii almustaqiima ee toosnaa jidka mustaqiimkee toosan ilaahu nagu hanuuni siraata aladiina kubii jidkoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda hayri almaqduubi kuwii loo carooday kayrkood ah ama aan ahayn calayhim dushooda waladaalliina kuwii dhumayna aan markaa ahayn inta ka soo hartay ee loo nimceeyey ee khayrkii wanaagga ilaahay siiyey ilaahayoo kuwaa jidkooda nagu hanuuni suuratu faatixa ayaan meesha uga baxaynaa waxaannu gelaynaa
suuraddii labaad ee ku xigtay waa suuratu albaqara. wabilaahi towfiiq wallahu aclam.